Akhlaaqdu waa dhaqan wanaagsan oo qofku ka barto deegaanka ku xeeran, ama uu isagu iskii naftiisa ugu curiyo, amaba uu ka dhahdo diintiisa uu aaminsan yahay. Sidoo kale akhlaaqdu waa shay aad u wanaagsan oo in badan oo inaga mid ah ka maqan maanta, waxyaabo inta badan ay soo hoosgelayaan sida dadla dhaqanka, shaqada iyo dhimrinta hadalka iyo hanaankiisa wanaagsan. Sidoo kale waa astaan wanaagsan oo qofku naftiisa u horseedi karo. Sidoo kale qof lagulama yaabo haddii uu ku faano akhlaaqdiisa wanaagsan dadka hortooda. Muuqaalkeena maanta waxaan ku eegaynaa daawadayaal akhlaaqda wanaagsan iyo sida uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu ammaanay nabigeena sallallahu calayhi wasallam. Magacaygu waa Maxamed Cali. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Haddaba akhlaaqda wanaagsan waxa uu Alle subxaanahu wa tacaala ku ammaanay nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam. waxa uu ahaa nabigeenu midka dadka ugu akhlaaqda wanaagsan, sidoo kale uguna macaamilka fiican. Haddaba haddii aan isku dayno inaan ka hadalno akhlaaqdiisii suubaneed, marnaba xaqeeda ma oofin karno. Haddaba noocyada akhlaaqda wanaagsan ayaa waxa ka mid ah inuu qofku ku sifaysnaado fikir wanaagsan, filasho wacan iyo laabxaadnaan. Haddaba qofka bani aadamka ah waxa uu wanaagsan inuu markasta dadka kale ka fisho wanaag, sidoo kale shakigana uu ka fogaado. Maxaa yeelay dabeecadaha fiican waxa ka mid ah malada fiican dadka kale laga fisho. Sidoo kale dabeecadaha wanaagsan waxa ka mid ah samafalka. maxaa yeelay meel kasta uu tago qofka wanaagsan samafalkiisu ma joogsado, sidoo kale mana istaago. Qofkii wanaag sameeyana xumaanta ay ka dhowrtaa, dhibaatadana way ka hortagtaa. Haddaba noocyada akhlaaqda wanaagsan ayaa waxa ka mid ah xiriirinta qaraabada. maxaa yeelay tan mid ka mid ah dhaqamada iyo sifooyinka oo leegu jecel yahay subxaanahu wa tacaala. Sidoo kale ballanqaadka ama ballanta oo la dhowro mid ka mid ah astaamaha ama calaamadaha lagu garto qofka mu'minka ah. Sidoo kale calaamadaha lagu garto akhlaaqda wanaagsan ayaa waxa ka mid ah hadal wanaag iyo carabka qurxoon. maxaa yeelay qofka akhlaaqda wanaagsan hadalkiisuna waa uu wanaagsan yahay. Sidoo kale dadka wanaagooda waa uu ku ammaano oo ku dhiirigeliyaa. hadduu qof xumeeyo amaba uu ku khaldamo waa uu qoslaa oo u dhoola cadeeyaa oo u wanaajiyaa. Haddaba noocyada akhlaaqda wanaagsan aad ayay u badan yihiin, lamana soo koobi karo iyadoo aan qoraal iyo sheeko toona lagu soo koobi karin. haddaba maxaa ka qurxoon oo ka qurux badan in aadan uu noqdo mid ku sifaysan ama ku tilmaaman akhlaaq suuban iyo dhaqan wanaagsan, isku dhimrin, isku nasteexan iyo isxaq dhowrid. bani aadamku wuu dhintaa, waxaase ka hara waa dhaqanka iyo akhlaaqdiisa suuban oo aan marnaba dadka kale ka go'ayn. waxay leedahay dabeecadda wanaagsan ee xagga islaamka faa'iidooyin badan iyo waxyaalo oo ku gaar yahay. waxaana ka mid ah dabeecadda wanaagsan kuma gaar ah nooc ka mid ah dadka. Allah wuxuu abuuray dadka oo leh muuqaalo midabo iyo afaf kala duwan, wuxuuna ka yeelay kuwo siman oo aan midba kale aan waxba dheerayn. laakiinse dadku waxay isdheer yihiin iimaan iyo Alle ka cabsi, siduu Ilaahay quraanka inoogu sheegay. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. dadow hubaal waxaanu idinka abuurnay lab iyo dhadig oo idinka dhignay shucuub iyo qabaa'il si aad isu aqoonsataan. hubaalkan idinku sharafta badan Allah agtii waa kan idinku Alle ka cabsiga badan.